xumada kuwii xumaa ee dhaqan xumada iska dhaaf inay sameeyaan ducaada ku aha ducaat kuwa ku baaqa oo ololaha weyn u galay qaanuunka Mareykanka laga soo saaray oo ah inuu ninkuna nin guursado gabadhuna ay gabadh guursato ayaa wadankeena lagu soo dhaweeyay markaas cirka la geeyay oo amaanta loo kiilay oo isaga naf la biday oo la yiri bal adduunyada noo sheeg i'tiraaf aanu helle ya subhanallah wa arda an-nas wa dadka ku u liitay xayawaanaadku waxay garteen xataa garan waay xayawaanaadka lab wata ama dhadig wata ma aragna sidii ilaahay fidrada ilaahay ku abuuray ku socdaan hatta nolosha xayawaanka kii hoos uga daadegay ayaan inagu sharfaynaa inuu qiimeynayna oo kamida kuwa ilaahay wari inhum illa kalan'am bal hum adallu sabila wallahi la nakhafu fillahi lawmata laa'im la nakhafu kafiran wala musliman naqulu alhaqq walau kana murra sidoo yahay baan u sheegaynaa xaq waaba qadaadadabe umadana xumaanta waa uga digaynaa markaas inta caruurteena loo geeyay habliyo inamo ay isla sawireen yaa la isla sawiraa marka dhaqankii iyo dabciga iyo caadada bani aadamka la eego qof loo arkay inuu yahay qof sharaf leh oo qiimo leh oo la rabo xusuus in laga haro Soomaa kaasa maanta meel walba mawaaqicda oo dhan waxa ku faafsan hableeni yaryara iyo inamadeenni yaryara oo sharaf ku doonaya inay ka garabka saaraan oo ka waxa weeyaan ay isla sawiraan markaas inaguna aynu wax fiican oo aragnaa oo haday noqoto meelaha wax lagu qoriyo haday noqoto warbaahinta amaanun baa looga kiilay ma joogin anigu wadanka laakiin si dhabaayaan ula socday xaqaayiqda noocaasi ah waxaan sheegayaa ma aha war qof soo gaarsiiyay waxaan anigu akhriyay oo indhahayga aan ku arkay oo xaqiiqadiisa iyo guntiisa aan ogaaday weeyay taasi wax kala calaamadu ma aha waxay calaamadu tahay غير darrada inaan xumaan ba looga baahayn ubadkii oo ka noocaasa in caruurta laga ilaashado bay ahay habla iska daayeen inamada laga ilaaliyo Soomaa oo laga fogeeyo maadaama mabdiisuba nooca uu yahay